safarkaygan aan haatan bilaabayo ayaa kii ugu wanaagsanaa ee aan abid galo intii aan noolaa isla markaasina Ayuub ahaan xiise weyn aan u hayay muddo badan sidoo kalena ahaa qorshe aan niyadda ku hayay sanado badan balse ugu dambeyn rumoobay safarkaygan ayaa sidoo kale ah mid ka duwan dhammaanba kuwii hore aan samayn jiray dhinac walba isla markaasina aanan soo qaadan wax lacag ah guud ahaan maadaama dunidu ay tahay mid la jaan qaadaysa tiknoolajiyadda casriga ah sidan ayaanay wax isu bedeleen hore safarada aan galo ayaa waxaan kala kulmi jiray dhibaato dhanka qaadashada dhaqaalaha iyo lacagta safarkayga ku baxaya balse haatan taasi muhiim maaha waxaan aan kaliya qaatay kaarka bangigayga anigoo ku isticmaali kara haatan guud ahaan dacallada dunida waxna taasi ay yareynaysaa warwarka lumitaanka lacagta maadaama inta badan waqtiyada lagu jiro safarka ay hawshu badan tahay asxaabta hadda ayaan ka soo baxay hoteelkii aan ka deganaa magaalada Jidda haddana waxaan ku sii socdaa magaaladii barakaysnayd ee Makka al-Mukarrama kadib markii aan tukanay salaada subax waxaanu bilownay dawaafka kabcada oo ah mid ka mid ah waajibaadka umrada intaas kadibna waxaan u dhaqaaqnay Safa iyo Marwa waxaan goobta kula kulmay kumanaan muslimiin ah oo iyaguna gudanaya umrada gudaha masjidka xaramka ayaa ah mid si weyn loo qurxiyay dhinac walba masjidka xaramka ee barakaysan ku yaala magaalada Makka ayaa waxa ku tukada in ka badan kumanaan kun oo muslimiin ah salaad kasta sidoo kale masjidka ayaa 24 saacadood u furan gudashada waajibaadka salaada iyo umrada agagaarka masjidka barakaysan ee xaramka ayaa waxa ku yaala hoteelo caalamiya iyo suuqyo casri ah oo loogu talagalay xujayda iyo muslimiinta kale ee gudanaya umrada iyo kuwa gudanaya waajibaadka salaada shaqaalaha masjidka ayaa ka badan kumanaan kun kuwaasi diyaar u ah nadiifinta iyo qurxinta masjidka barakaysan ee xaramka masjidka barakaysan ee xaramka ayaa ku yaala magaalada Makka al-Mukarrama oo ah magaalo taariikh fac weyn ku leh taariikhda aadamaha gaar ahaan islaamka Ayuub ahaan safarkaygan ayaa waxa uu ahaa kii ugu wanaagsanaa abid iguna farxadda badnaa maadaama aan safarkaygan ku tagay magaalada barakaysan ee Makka ku xulno Ayuub show lana soo muuqaal cusub